shirkad hal badeeco iyo in ka badan 50 milyan oo dhimasho ah maalin kasta waxa dhacday in dad malaayiin ka badan ay shitaan sigaar waliba ayagoo isla markaas weyn u dili karo laakiin su'aasha dhabta ayaa ah sidee ayay ku dhacday in shirkad sida Philip Morris oo kale ay dunida oo dhan ka dhaadhiceen in sulan neefsada ay noqoto wax iska caadi ah sidee ayay Marlboro uga dhigeen asaan raganimo xorriyad iyo style iyo waliba mid ugu cabsida badan oo ah haddii sigaarku u dilayo malaayiin qof sanad kasta maxay shirkadahan weli u sii jiraan haddaba caalamkan sigaarka ayaa mid intaad filanaysa ka madow adigoona muuqaalkan maanta ku ogaan doona waxaadan marnaba filanaynin tani ma ahan oo kaliya sheeko ku saabsan sigaar waa sheeko ku saabsan lacag khiyaano xaysiin maskaxda lagu xado iyo waliba warshado ugu talagalay inay ka ganacsadaan sunay ogyihiin inay ku baaba'ayaan malaayiin qof muuqaalkan waxaad ku ogaan doontaa xaqiiqada dhabta ee ka dambaysa sigaarka iyo waliba runta aysan warshadaha sigaarku rabin inaad ogaato iyo waliba ganacsiga dhimashada ee ku fadhiya balaayiinta dollar haddaba tubaakada ama sigaarku ma aan wax salam filaan dunida uga soo muuqday ayadoona sigaarku hore soo jiray isla markaasna leeyahay taariikh dheer oo kumanaan sano dib u noqonaysa waxay haddaba tubaakada ayaa salaanteeda ka soo jeeda Amerika gaar ahaan meelaha maanta loo yaqaan South America iyo North America ayadoona qabiilooyinka asliga ah ee meeshaas degan ay caleenta tubaakada u isticmaali jireen sababo kala duwan sababahaasoo ay ka mid ahayd inay isticmaali jireen qaab diiniyan ah oo waxa dhacaysa in tubaakadan ay u arkeen shay cibaado ah ayadoona qabiiladan ayba rumaysnaayeen in qiiqa tubaakada uu xiriir la leeyahay waxay aaminsanaayeen ilaahiyadooda intaas kadib waxa dhacday in taariikhdu markaad 1492 ay gruub saamiyaal reer Yurub ay booqdaan qabiiladan iyo meesha ay deganaayeen gruubkaas oo hogaaminayay ninkii lagu magacaabay Christopher Columbus haddaba gruubkan saamiyayaasha ayaa markii hore aad ula yaabay qolyaan iyo caleenta ay qiijinayaan ayagoona markii hore u maleeyay waxaanay qabiilkan sameynayeen yihiin caado sixir ah laakiin marka si dambaysa waxa dhacday in qolyaan ay soo fahmaan tubaakadii ilaa heer safaradii dambe ay gruubkan saamiyayaasha ahaayeen kuwa hore u soo qaatay isla caleentii tubaakada ahayd ayagoona keenaya Yurub haddaba kadib markii Columbus caleentii tubaakada uu soo raray dhankii Yurub waxa dhacday in qarnigii 16aad uu sigaarku noqday mid fashion ah kaasoo ay cabaan dadka maalqabeennada ah ayadoona uu si degdeg markiiba ugu faafay Yurub oo dhan halka sidoo kalena ay dadkaasi aamineen waqtigaas in sigaarku uu yahay mid waxyaabo badan daaweeya sida madax xanuunka stresska iyo inuu ka hortago cudurrada qaar sida yaataba waqtigu uu socday ayadoona dadkii reer Yurub ay aad ula qabsadeen tubaakadii intaas kadib waxa dhacday in markii uu halkii ku dhashay ganacsigan qiiqa ee ku fadhiya balaayiinta dollar haddaba dadyoogii ugu horreeyay waqtigaas ganacsigan faafiya ayuu kamid ahaa cunugga lagu magacaabo Philip Morris kaasoo aslaantiisa cunug ku dhashay wadanka Ingiriiska taariikhda markaad 1835 haddaba taariikhda markaad 1847 Philip iyo waalidiintiisa ayaa ku tukan yar oo tubaakada lagu iibiyo ka farta mid kamid ah wadooyinka magaalada London halkaasoo ay ku iibin jireen tubaakada noocyadeeda kala duwan ha noqoto sigaarka nooca gacanta lagu sameeyo iyo waliba noocyada kala duwan ee tubaakada ayadoona Philip uu yaraantiisiiba noqday mid si weyn u kala bartay ganacsiga tubaakada waxay haddaba kadib markii uu Philip dhamaysay waxbarashadiisii dugsiga sare taariikhda markaad 1854 waxa dhacday waqti xaadirkaas uu Philip go'aansaday inuu safro wadanka Mareykanka waliba isagoo waqtigaas jiray oo kaliya 19 sano halkaasoo uu waxaan ka haystay oo kaliya $5 waxay haddaba Philip maadaama uu khabiir ku ahaa samaynta tubaakada iyo sigaarka waxa markiiba dhacday inuu shaqo ka helo mid kamid ah warshadihii sigaar ee waqtigaas magaalada New York halkaasoo uu bilaabay inuu ka shaqeeyo ayadoona kadib markii uu Philip meeshan ka shaqeynay muddo sanad ah isla markaasna uu kororsaday khibrad ku filan uu markan go'aansaday inuu asaasto warshadiisa tubaakada ee uu gooniya taasoo uu ku soo saaray sigaarka noocyadiisa kala duwan maadaama uu markan khabiir weyn noqday halkaasoo taariikhdu markaad 1858 uu halkii ku asaasay shirkadiisa sigaar ee uu magac daray Philip Morris and Company waxay haddaba waqtigaas warshadan sigaar ee Philip ayaa ahayd mid sigaaradeeda lagu sameeyay ay hayeen kuwa gacan ku samaysa ayadoona kadib markii uu suuqa sigaarka weynaaday uu markan Philip bilaabay inuu maalgasho mashiinada casriga ee soo saaraya sigaarka si ay isla markaas mashiinadan ugu sameeyaan sigaar tiro badan isla markaasna degdeg ah laakiin kadib markii shirkadii Philip Morris lugeeda ku istaagtay isla markaasna ay qaaday wadadii guusha waxa markiiba dhacday inuu halkii ku geeriyooday ninkii asaasaha isla markaasna lagu magacaabay Philip Morris taariikhdu markaad 1873 kaasoo waqtigaas jiray oo kaliya 38 sano asagoona ninkan waqtigaas u dhintay cudur safmareen ah ayadoona markan ay shirkadiisa sigaar ku wareegtay gacanta familkiisa oo xaaskiisa Margaret iyo waliba walaalkiisa Leopold kuwaasoo halkii ka sii waday warshadii iyo waliba soo saaridii sigaarka ayadoona dabayaaqadii qarnigii 19aad oo magacii Philip Morris noqday mid aad caan u ah halka bilowgii qarnigii 20aad ay bilaabeen inay balaariyaan isla markaasna si weyn u qabsadaan suuqyada Mareykanka ayadoona xaalku sidaas ah ilaa laga soo gaaray taariikhda markaad 1924 markaasoo ay wax walba isbedeleen kadib markii ay Philip Morris soo saartay sigaarkeeda lagu magacaabo Marlboro sigaarkan oo waqtigaas mid loo sameeyay dumarka kaasoo bedeli doona guud ahaan mustaqbalka shirkadda Philip Morris haddaba boqolkii sano la soo dhaafay waxa la sheegay in ku dhawaad 100 milyan ay ku dhinteen dagaaladii dhacay bal ka warna haddaan ku sheegin tiradaas tiro la mid ah sidoo kale ku dhintay sababo la xiriira sigaar ay cabeen awgeed ayadoona kala bar tiradaas ay sababteeda leedahay shirkadda lagu magacaabo Philip Morris taasoo la sheegay in ku dhawaad 50 milyan oo qof ay u dhinteen cabida sigaaradeedan waxay haddaba kadib markii ay Philip Morris samaysay shirkadeeda Marlboro waxa dhacday in markan xoog ugu dhan ay saaraan dhankaas iyo dumarka ayadoona sigaaradan Marlboro sameeyay isla markaasna u diisan gareeyay qaab ay dumarka loogu talagalay
ayadoona noocan sigaar uu ahaa mid filtaraysan islamarkaasna aan u xooganayn sida sigaaradii hore oo kale. dabcanna noocan sigaar ayaa Philip Morris soo guulaan innaba caadi ahayn maadaama uu noocan sigaar ahaa mid taargetiraysanaysa suuq hor leh islamarkaasna aan la taabanin. laakiin sidaas ay tahay waxaa dhacday in Philip Morris ay la kulanto dhibaato kale oo hor leh. dhibaatadaasoo ay dumarkan waqtigaas loo galay in sigaarka ay ku isticmaalaan meelaha publika ah. midanoona dhalseen Philip Morris ay u bilowday urur dhaqdhaqaaq haweenka ah, ururkaasoo islamarkaas u doodo dumarka. haddaba ururkan ayaa madax uga dhigan ninka lagu magacaabo Edward Bernays, ninkanoona waqtigaas ahaa madaxa propagandada. dabcanna ninkan ayaa markiiba hawshiisa bilaabay inuu kiciyo dumarkii, asagoona soo maraya dhankaasi feminismka iyo in dumarka ay la xuquuq yihiin islamarkaasna la siman yihiin ragga. ayadoona ninkan uu bilaabay in qorshihiisa uu ku beega maalinta Easterka oo ah maalinta ay Kiristanku ku dabaaldegaan ciidooda, halkaasoona maalintaas ay dadku isugu soo baxaan fagaarayaasha iyo weliba wadooyinka. haddaba ninkan ayuu qorshihiisu ah inuu farta ka saaro sigaar gruub walba oo dumar oo wada socda si ay u shitaan islamarkaasna ay uga xarugadaan sigaarkaas. midanoona waqtigaas ay suuqiyinta ugu weyn la samayn karo. ayadoona intaas kadib uu ninkan ahaa mid goobta ku diyaariyaba kaameramanno iyo weliba joornaalistayaal si isla markiiba dhacdadaas loo qabto. dabcanna qorshahan ayaa sidii loogu talagalay u dhacay. ayadoona maalmo kadib ciidaas ay dhammaan dumarkii bilaabeen inay wadooyinka ku cabaan sigaarkii, ayagoona weliba muujinaya xorriyad. halkaasoona markiiba ay kambaniyada tubaakada uu halkii ku 3 jibaarmay seeliskoodii kadib markii uu u furmay suuq hor leh. waxay haddaba laakiin suuqooda ugu weyn ayaaba ahaa mid yimaada dagaalkii labaad ee dunida. haddaba markii la gaadhay dagaalkii dunida waxaa dhacday in suuqii tubaakada uu markan hawada isku shareero sababo la xidhiidha in ciidamadii dagaalka gelaya ay dhammaantood ahaayeenba ku cabba sigaarka. heer ciidamadaasi ayba gaadheen intii lagu guda jiray dagaalkii in sigaarka ayba u dalbadaan sida xabadii oo kale marka uu ka go'o. dabcanna kambaniyadan tubaakada ayaba middan u ahayd fursadooda ugu weyn. ayadoona kadib markii ay ciidamadaas ka soo laabteen dagaalka ayba dhammaantood ahaayeen kuwa la qabatimay sigaarkii, kuwaasoona ku dambeeyay inay kastamar u noqdaan shirkadahan tubaakada weliba noloshooda inta ka dhiman. waxay haddaba inkastay labadan suuqiyana kala middan dumarka iyo tan dagaalkaba ay ahaayeen kuwa sidii loogu talagalay ugu shaqeeyay shirkadahan tubaakada, haddana arrinka la yaab kale ayaa ahaa in waxaasoo dhan aysan ku filnayn shirkadahan sigaarka, ayagoona weli sii rabay inay cirka sii geliyaan suntoodan islamarkaasna ay la yimaadaan habab kale oo suuqgeyn. haddaba waa markay la yimaadeen suuqiyintooda ugu waaleyd, taasoona ahayd inay markan shaqaalaysiiyaan dhakhtarro si dhakhtarradaas ay sigaarkooda ugu xayisiiyaan islamarkaasna ayba uga dhigaan wax iska caadiya, ayagoona dhakhaatiirtaas siinaya sigaarro firi ah. Coffee, doctor? Oh, fine. Have a Camel with your coffee. Thanks. sheekadu intaasoo keliya kuma eka, ayadoona shirkadahan tubaakada ayba sameeyeen inay goob walba ku xayisiistaan sigaaradoodan, ha noqoto aflaamta xitaa filimada kartoonka ay carruurtu daawadaan. dabcanna waqtigaas haba yaraatay wax ka hor istaagaya ma jirin shirkadahan inay ku xayisiistaan sigaaradoodan meel walba ay rabaan, midanoona sidii ay ka rabeen ugu shaqaysay. waxay haddaba laakiin xaalku marka uu meeshaas marayo taariikhdu markaad 1954 waxaa dhacday in shirkadahan tubaakada ay markan la kulmaan dhibaatadoodii markan dhulka gelin lahayd ayaga iyo weliba sigaaradoodan halista ah. waqtigaasuuna uu soo baxay riboodkii ugu horreeya sheegay in sigaarkuuba cilaaqaad la leeyahay cudurka halista ee kansarka sanbabada. ayadoona kadib markii uu soo baxay warkan halista ah ay bilaabatay in dad iyagii sigaarka cabayay ay u cabsadaan naftooda, midanoona markiiba lumisay macaamiil badan oo cabbi jiray sigaarka. waxay haddaba laakiin shirkadahan tubaakada ayaan sidan sahlan isku dhiibaynin, ayagoona aan marnaba ogolayn in wixii intaasu sana ay soo dhisayn ay sidan fudud ku lumiyaan iyo weliba aragtida dhakhtarra qaasa. haddaba waa markii ay dib isugu laabteen islamarkaasna ay la yimaadeen qorsho hor leh, kaasoona ay ku sii wadayaan ganacsigoodan. qorshahaasoona ah inay markan xooggooda oo dhan saaran sidii ay dadka uga dhaadhicin lahaayeen sigaaradii filtaraysnaa, kuwaasoona markii hore ay ugu talagaleen dumarka oo keliya. ayadoona shirkadahan sida Philip Morris ay markiiba bilowday inay gebi ahaanba beddesho muuqaalkii hore ee sigaarka lagu magacaabo Marlboro, kaasoona saan hore soo sheegnay ahaa sigaar dumar islamarkaasna aysan rag waqtigaas isticmaali jirin maadaama uu sigaarkan ahaa mid filtaraysan islamarkaasna ka khafiifsana sigaarka ragga. ayadoona taariikhdu markaad isla 1955 ay Philip Morris bilowday ololo cusub iyo weliba xayisiimo bedelay guud ahaan maskaxdii dadka. xayisiimahaasuna ah in sigaarkii Marlboro ay ka dhigaan islamarkaasna ay siiyaanba sawir ah nin adag islamarkaasna xor ah, calashaan xayisiin si guud muujinaysa in sigaarkan uu yahay mid loogu talagalay ragga ah. waxay haatan saaxiibayaal haddii aad ka hesheen muuqaalada noocan oo kale ah fadlan xor ahaw inaad nagu soo biirto sidoo kalena channelka subscribe saarato si aad isla markaas u hesho muuqaaladan aadka u xiisaha badan ee aan ku soo gudbino channelkan. aanu gudagalno muuqaalkeennan. dabcanna kadib markii ay Philip Morris soo saartay xayisiinteedan ahayd Marlboro Man, waxaa dhacday in ololahan uuba noqdo mid ka mid ah xayisiintii ugu saamaynta badnay taariikhda. ayadoona ololahan kadib uu markiiba seeliskii Marlboro hawada isku shareeray, asagoona si weyn u kacay iibkii noocan sigaar, halkaasoona ugu dambeyntii sanada yarun kadib uu sigaarkii Marlboro ku noqdayba mid ka mid ah sigaaradii lagu iibsiga badnaa dunida, halka badi raggiina ay bilaabeen inay cabaan noocan sigaar. ugu dambeyntiina xayisiintan waalida islamarkaasna maxkamadaysan ayaa ugu dambeyntii Marlboro ka dhigtay shirkadda sigaar ee ugu weyn dunida ilaa waqti xaadirkan la joogo.
haddaba midda laga yaaba inay isweydiinaysa ayaa ah maxay shirkadahan sigaarku sidaasoo dhan ay cadow ugu yihiin isla markaasna ay u iibinayaan suntan haligaysa malaayiinta qof sidoo kale waa maxay sababta ay dowladuhu waxba uga qaban karin shirkadahan haddaba sababtu wax kale ma ahane waa lacag oo dowladahan ayaa badankooda ahba kuwa ku tirsan lacagaha waalida uga soo xaroonaya shirkadahan tubaakada marka marnaba haysteen in dowladuhu aysan ka waraynin waxaan oo dhan iyo dadyowgan malaayiinta ee sanad walba ku baaba'aya qiiqan halista ah ayadoona haddiiba ay dhacdeen la mamnuuco shirkadahan sigaar uuba dhici karo suuq madoobaad iyo in dakhliga waddamo badan uuba dhulka galo dhanka kale shirkadahan ayaaba leh awood iyo weliba dhaqaale taasoona ayba ku saamayn karaan siyaasadda dalalka marka waxa keliya ay dowladahan samayn karaan ayaa ah in shirkadahan ay canshuurta ku kordhiyaan dhanka kalena ay xadidaan xaysiimaha badan ee ay samaynayaan shirkadahan iyo in digniino caafimaad ay bixiyaan ugu dambeyntiina markii la soo gaadhay 70-meeyadii waxaa dhacday in dowladihii waaweyn ay bilaabaan inay baangareeyaan xaysiimaha shirkadahan sigaar ay ku xaysiisanayaan tviyada laakiin shirkadahan ayaa kuwa soo wareega dhankaas iyo joornaalada haddana markii ay dhacdeen joornaaladii laga baangareeyo waxaa dhacday inay haddana dhankaasi u soo wareegaan tartamada waaweyn iyo goobaha ay dadka badan iskugu yimaadaan ugu dambeyntiina markii laga soo xidhiidhay albaab walba ay wax ku xaysiisan lahaayeen shirkadahan ayaa kuwaan halkii isku dhiibin ayagoona markan xooggooda saaray inuu gudbaan suuqyo kale iyo weliba dalalka ay sharciyadoodu dabacsan yihiin ilaa maantana shirkadahan ayaa weli sidii ah ayagoona mar walba hela fursad ay ku xaysiisaan brodhaktiyadoodan dabcan xaysiimahaasoo dhan ayaan meel bannaan ku soo dhicin oo maanta ahaan suuqa tubaakada ayaa lagu qiyaasaa in sanad walba uu soo xareeya lacag kor dhaafay 800 ilaa 900 bilyan oo dollar ayadoona suuqan ay hoggaan u tahay shirkadda lagu magacaabo Philip Morris halka qiyaasaana dunida maalin walba laga cabo sigaar tiradiisu gaadhaysa 15 bilyan oo xabbo sigaara midaanoona sanadkii u dhiganta tiro gaadhaysa 5 ilaa 6 trilyan oo sigaar halka maanta marka la joogana qiyaasaan la sheego inay jiraan 1.3 bilyan oo qof kuwaasoona isticmaala sigaarka islamarkaasna la qabatiimay ayadoona midda waxaasoo dhan ka sii darnayba tahay in sanadadii u dambaysay ayba shirkadahan tubaakada bilaabeen haab cusub kaasoona ayba ku soo saareen jiil horle oo sigaar cabayaal ah kadib markii ay soo saareen nooca sigaari loo yaqaano e-sigareetka ama vebta taasoona marka la eego kaba sii qabateen xun sigaarka haddaba noocan cusub ee sigaar islamarkaasna loo yaqaano vebta ayaa weydii u dambaysayba aad u qabsaday caalamka oo dhan ayadoona noocan sigaar uuba noqday mid si degdeg ku faafa kaasoona dhaliyeyba jiil horle islamarkaasna smokerisa waxay haddaba noocan sigaar ee vebta ayaa markeedii ugu horreysay la soo daafiyey taariikhdu markaa 2003 ayadoona markii hore ujeedada loo sameeyey uuba ahaa in dad yooga la qabatay sigaarka lagaga joojiyay maadaama vebta ay ahayd mid waxoogaa ka halis yar marka loo barbardhigay sigaarka caadiga ah laakiin wax walba waxay isbedeleen kadib markii la soo gaadhay 2010 wixii ka dambeeyey markaasuuna uuba noocan sigaar noqday mid aad caan u ah ayadoona kadib markii e-sigareetkan uu caan noqday islamarkaasna ay dadyo badan bilaabeen inay cabaan noocan sigaar waxaa dhacday in markan shirkadihii tubaakada ayba u soo jeedsadaan suuqan cusub halkaasoona ay markiiba bilaabeen in shirkadahan ay gataan shirkadihii veb oo tusaalahaan shirkadda lagu magacaabo Philip Morris ayaa 2018 la wareegtay shirkaddii veb ee ugu weyneed wakhtigaas Juul taasoona qisadeeda oo dhammaystiran aan hore uga soo hadalnay iyo sida shirkaddan u beddeshay guud ahaan caalamka tubaakada oo dhan ayadoona sanado koobanba shirkaddan ay ku bartay brodhaktiyadeeda dhammaan caalamka oo dhan haddaba waxaa laga yaabaa inay isweydiinaysa mid ka halis badan sigaarka caadiga iyo sidoo kale vebta haddaba jawaabtu ma ahan mid sahlan oo dabcan waa la dhihi karaa in vebta ay ka halis yar tahay marka loo barbardhigay sigaarka oo waxaa jira dadyo badan oo horey sigaarka ula qabatiimay kuwaasoona markii dambe iska dhaafay sigaarka sababo la xidhiidha vebta awgeed laakiin haddana mid aysan dad badan ku baraarugsanin ayaa ah in vebtu ayba tahay mid ka qabatiin xun sigaarka islamarkaasna ayba tahay mid nikotiinka ku jira uuba ka sarreeya midkan sigaarka ku jira dabcanna nikotiinkaas ayaa mid halistiisa wata ayadoona sidoo kale durba la sheegaya in vebta ay dadyo badan u dhintay darteed haddaba haddii aad rabto inaad wax ku ogaato noocan sigaar ee cusub islamarkaasna lagu magacaabo vebta waxaan kaaga diyaariyay muuqaal dhammaystiran islamarkaasna sharxaya wax walba oo ku saabsan iyo sida uu noocaas sigaar u yahay mid ka halis badanba sigaarkan caadiga aan naqaano haddaba si aad u soo daawato muuqaalkaasoo dhammaystiran fadlan ku dhufa thumbnailka shaashada kaaga muuqanaya halkaas ayaanu balanaa